kusoo dhowow casharkii labaatanaad ee barashada Amazon. waxaad ku baran doontaa casharkan watermark sida loogu soo darsado, sida loo edit gareeyo watermark, sida looga saarayo watermark. maxaa la lahaa? watermark waxaa la lahaa in aad kusoo darsato documentigaaga sawir ama qoraal inaad kusoo darsato si aan lagaaga koobeysanin ayaa loo sameynaya watermarkan marka rabtid inaad kusoo darsato waxaad tegeysaa page layout. waa kana marka watermark halkaas ku dhufinaysaa. waxa u qaybsamay markana confidential one, mid sansan u yaalo, mid horizontal u yaalo, mid waxoogaha jiifa, mid toos ah ayaa u qaybsamaya. marka waxaan dooranaynaa midkan ayaan dooranaynaa. waa kan oon soo darsanay. page walba aad tagto hadeer confidential ayaa ku qoran yahay. fiiri, waa kan mid walba confidential ayaa ku qoran yahay. haddii aad rabto inaad edit gareyso waxaad tegeysaa page layout, watermark, kadibna halkan custom watermark ayaa halkaas ka dooranaysaa. waa kana marka no watermark marka ka saaraysid wax watermark ma lahan. no haddii aad dhahdid okay aad leedahay, watermark dhan waa baxaya. marka la ku laabo confidential ku dhufo, watermark waa soo gelisay. marka la ku dhufo custom watermark dheh. waa kana marka picture sawir markaa soo gelinaysa halkan waa soo laaban doonaa. text aan ka hormaraynaa. confidential meeshan qoran tahay ayaan tirtiraynaa oo waxa ku qoraysaa waxaad u baahan tahay. tusaale ahaan balawi ayaan ku qorayaa. halkan kale luqada ay halkan ka dooran kartaa. luqada aad u baahan tahay Arabic, English, waxaad u baahan tahay oo dhan halkan ayaa ku dooran kartaa. hadda English waaye, textiga iyo bedel waxaad iga dhigtaa balawi. waxaa soo dooranaya luqada, kadib ayaa text dooranaysaa. halkan fontiga farta halkan ka bedelaysaa. farti aad u baahan tahay ayaad ka dhigi kartaa. diagonalna waxaa waaye inuu sidan ku ahaado. halkan kale waxaa waaye in farta khafiif laga dhigo. haddii khaddan u baahan tahay inaad soo muujiso halkan ayaad dooranaysaa. waa kan kalarka halkan ka bedelaysaa oo aad u baahan tahay inaad saarato. tusaale ahaan cagaar ka dhigayaa. apply, okay. waa kana marka close leh. fiiri, waa kan qoraalka haddii aad tagto waxaa ku dhex sawiran saa ujeedaba balawi ayaa ku dhex sawiran. watermark ku dhufanayaa custom watermark. waa kana qoraalka halkan ka bedeli karaa. ms word core 2010 kadib apply dheh. waa kana ms word. haddii aad u baahan tahay watermark sawir ana halkaana ku dhufinaysaa custom watermark. halkaana dooranaysaa picture. halkan select picture sawirka aad u baahan tahay, logo company ama sawirka caadiga ah ayaad soo dooran kartaa. tusaale ahaan picture tagayaa. waxaan soo raadinayaa logo png ah. midkan iska door png waay dooro oo okay dheh. marka waa kana hadeer loogada saa ujeedaba khafiif waaye. halkan fiiri khafiif waa. marka waa muujinaya marka si fiican u muujinaya. fiiri watermark ku dhufanaya custom watermark. halkaana jag i saaran ujeeda. halkaas jag ka qaadaya. apply leeyahay, okay. loogadii marka si fiican oo soo muuqanaysa. waa kana haddii aad u baahan tahay in loogada si fiican soo muujiso sidaas ayaa sameynaysaa. laakiin waxaa la isticmaalaa professional ah in meeshan jag ku saaran tahay, waayo hodhow marka la koobeynayo waa soo dhex muuqanaysa. marka si fiican looma rabo. marka sidaas waa inaad sidaan ahaataa la rabaa oo ka dhex muuqato. sidoo kale sawir waa saari kartaa iyo wixii lamid ah. sidee looga saaraya marka? hadda waan kusoo dari kartaa, waa edit garey kartaa. sidee looga saarayaa? watermark ku dhufinaysaa, kadib remove watermark halkan ugu hooseyso ayaad ku dhufinaysaa. waa kana waa ka saartay. waxaan filaya hadda inaad fahantay sida loogu soo darayo watermark, sida loo edit gareynayo watermark, sida loogu saarayo watermark. waa ku mahadsantahay daawashada daawatay muuqaalkan. fadlan like saar.